tukanayso ee muadinku ku leeyahay hayya ala salaah hayya ala alfalaah jannada isurkeen jannada ku xisaabta bashir ramadaan baa soo gashay jannada isurkeen sadaqad baa bixi laga leeyahay jannada isurkeen quraan baa lagu leeyahay kaale akhri jannada isurkeen aakhira wax u bixi baa lagu leeyahay jannada isurkeen markaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam majliskiisa isagoo maalin fadhiya ayay nimankii muhaajiriintii maka ka soo hijrooday ayaa sare kacoo nabigay ku yidhaahdeen nabi allow magaalada maka annagu aan ka imanay ka soo baxnay maa uu zamzam baan ku haysanno ii maahayn halkan biyuhu waa ii magaalada madiina ceelashana niman yahuuda inta badan iska haysta lacagaan ku iibsanana ma haysanno markaa ninkii ceelka bi'ru ruuma lahaa ayuu nebigu u tago wuxuu ku yidhi asxaabatayda muhaajiriintayda biyaha u fasaxa ka cabbaane markaasuu yidhi u fasixi maayo oo anu ceelkaa yar baan leehayoo biyahaa yar baan iibiyaayoo reerkayga ayaan ku biiliyaa markaa buu nebigu ku yidhi bicniihi bicaynin fi ljanna il jannada ku taalla ceelkaagaa ku beddilo ku iibso markaasuu yidhi may ceelkaygaa yar iska iibin maayo iska kaydaa buu ka yidhi cuhmaan binu cafaan radia allaahu canhu oo daki ahaa oo caqli badnaa oo inshiisu meel dheer wax ka arkaayey oo basiiro ilaahay uu siiyey ayaa hadalkii nebiga qalbigiisa ku dhibcay bicniihi bicayni aljanna il jannada ku taalla ceelka igaga iibso markaa buu ninkii iska diiday ninkii ceelka lahaa cuhmaan baa ninkii u tagoo yidhi ceelkaaga haddii lagaa yidhahda lacag ku iibi ma iibin lahayd haa waan iibin lahaa way gorgortameen markaa waxay ku heshiyeen 30,000 oo dirham cuhmaan lacagtii buu soo qaado uu dhigay ceelka furihiisa igu soo wareeji buu ka yidhi uu ka soo qaatay rasuulkii calayhi salaatu wasalaam buu u keeno wuxuu ku yidhi yaa rasuulallah ceelkii bi'ru rooma haddii aan keeno ishii jannada ku taallay ninkaa loo ballan qaado iska diiday aniga ma lai ballan qaadayaa markaa buu nebigu yidhi haa markaa buu yidhi ceelka furihiisii waa kan asxaabtaadana waa waqaf buu u yahay ha dhaansadaan buu yidhi ceelka haddooda biyihiisa waa waqaf hal isticmaala buu rasuul allah markaa buu nebigu farxay indhaha ayuu nebigu markaa kor u qaado wuxuu yidhi cusmaan ilaahuw raalli baan ka noqdee raalli ka noqo cusmaan maanta laga bilaabaa camal dambe hadduunan samaynba intaa buu jannada ku gelay buu rasuulku yidhi bicniihi bicayni aljanna indheergarata dadkaasa ahaa soo maha yaa mise siyaasi salaadna aan tukanayn baa lagu odhan indheergarata weeyaanoo 50 sanee soo socda isbeddelka geeska afriku ka faalloodaa ay dhegaysta idaacad intoo la soo fadhiisay yaa allah caqliga aakhirada ku tusini waayo caqli maaha nolosha dambe caqliga kuu jeedin waayo caqli maaha araggu haddaad aakhirada ku arki weydo ood ku xisaabtami weydo arag saxa maaha janno hadday maqlaan asxaabta rasuulku waxay hayaan halkaaba iska dhigayeen marka jannadaasaan is hordhigaynaa markaan soomayno salaadayno sadaqadda bixinayno zakada bixinayno waalidka u samafalayno janno nin baa nebiga u yimid oo yidhi jihaad baan rabaa oo inaad jihaad baxdaad u timid haa jannaad doonaysaa haa jannaan doonayaa nebi allah wax kale ma doonayo labadaadii waalid ma nool yihiin may hooyaa nool ma iyadoo kaa raalliyaa timiday mise iyadoo safarkaaga aan raalli ka ahayn maya iyadoo ooyaysaan ka imiday markaa buu nebigu uhi sow janno uma socotid haa hooyadaa ku noqo lugteeda qabso halkaa baad jannada ka geli doontaa adigu ilzim rijlayha uma aljanna buu nebigu uma aljanna lugteeda qabso jannada halkaa baad ka geli daacadda ilaahay markaad gudanayso waxaad is hordhigaysaa waa janno macsi markay naftiiyo shayddaanku kuugu yeedhaan ee shayddaanka iyo naftu ay ku yidhahdaan ilaahay caas oo dembiga samee oo waxaa ku dhac markay naftiiyo shayddaanku ku yidhaahdiin waa inaad is hordhigtaa ilaahay cadhadiisa is hordhig inna badsha rabbika la shadiid inna rabbaka labilmirsad ilaahay ku xisaabtan cadhadiisa ka cabsiya naftaada marka labadaasaa la doonaya ilaahay inaan ku caabudno tamacan khawfan wa tamacaa cabsi iyo rajo cabsida goormaa la rabaa waa intaad caafimaadka haysid eed nolosha haysid ee dhallinyarada aad tahay
الأمن هيستد إلهي عبسك وعابد مال انت دير حنوستنا أما حالة أنا جاي كوكوت مادو إلهي الرحمة دي سر رجيم مركز وحكو سر وحاضر هذا نفط هذا واحد كتر هذا ربي جاي وانا حريص بدنه وديقسي بدنه وكريم وياه إلهي وكريم قال له شقين سوى كريم سيدي نكي حجك أسعدي مرأة اللي مركو إحرامك أحدي أيوم مغلي يقول لبيك اللهم لبيك مركا دوشي سال لقلي لا لبيك ولا سعديك حجك آدو سعوت الله ما أقبل سفرك آدو حمان قادتين إلهي كا أقبل ما يوسك جوب هذا البعض شكل الحوام مدي سقد قداشي سجوغا هذا الكيلة مقاشيي كيبا كويري يا شيخ حاضك حجنا ديبو لبيك اللهم لبيك مركا ترى على الجواب تبعد مغلي مركا ما مقاشي ها وان مغلي ما هذا المقاشي هذا المغلي وعد تضبي الله بعد السنة أيان إلهي كوريكي سو قصدي مرة لي مركا حجك أنس إحرامك صو حدو إيه تلبية صوب العبابا لا لبيك ولا سعديك بالليلي هي ووحل الشيء ده اللي لي هي حجكاغا عمرadaada sacigaaga cibaadada aad u socoto ilaahay ka aqbali maayo baa leeyahay iska joog baa leeyahay haddaan gurigiisa ka joogo oo socodka aan xaqiisa u dhaqaaqay aan ka joogo xagee kale oo taga balisha guri adag tala ka qaadana balisha bukay ma jirtaa meel kale wuxuu ama hal lay aqbalo ama yaan lay aqbalin أنا إلهي ما نصعد حقي سبوي مالك الأمة الصعود كقوسا ما إلهي الرحمة ديس الكريم الرحيم الرحمن وحليم وستار عبت إنه رب قرنا يا مات دول قاد بدنه وارمع عدالة إلهي ما كنت جوج الدنيا ده بالي دول سترك هي دول قاد إلهي ما كنت جوجنا ستر أستر كيس إلهي بنا أستريا إلهي بين نض القادنيا لكن هذه عدالة اللي يجي لها أعماش الجركنا ما تكسو فليسا هي عصيان كان إلهي عاصنا إنه هي سدا معاصده والضوين كنا مقاحيه هنا قريه هنا إلهي اللوغو عاصنا يو دقيقة أدون كينا كنا ولا نحق ما يلنا المانت تضبي الله ما تسنى المغلى يا أبو يري واللي يقول جوابا يا واللي إليه هي إلهي حشاك كأقبل ما يسكجو دما جوغا كجوغي ما يوان سعدا غلوريا ويميدي ضواف كيبو بلابي سعيغي مركو دميي ايا دوشيسا لغا دواقو ليدي لبيك وسعديك وانكو اقبلي وكا اجيبني تضبي اللباتكي هوري حجدينا الهي وكا اقبلي با لغو يدي كيبا لما قشيه مركو رمقلاي مركا بولي شيخ والله لغو اقبلي وعودا الباب كي سمعينا الباب كلو قراعينا ما جرت بو كيدي ما قوسنين انكو الهي